jasiiradda Chula waxay hoos tagtaa degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. Afarta dhinaca badweynta Hindiya ayaa kaga hareeraysan. Dadka ku nool waa Baajuun, waana dad Soomaaliyeed. Waa jasiiradda ugu qadiimisan guud ahaan jasiiradaha dalkeena Soomaaliya. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, YouTube-ka subscribe sar. Haddii aad nala socotayna, like iyo share bay isugu dar si uu gaaro saaxiibo badan. Bogga Facebook-gana hubso inuu follow ku yahay, like iyo share-naba garees uu u gaaro saaxiibo badan, annagana aad inoo dhirigeliso. Waxaa dadku degan yihiin jasiiraddani in ka badan 426 sano. Waxaa ku noolaa dad kor u dhaafaya 300 oo qoys. Khayraadka ay ku tiirsan yihiin waa kalluunka iyo wax soo saarka badda, quuriga ama farbadeedka. Jasiiraddan dalxiiska ku wacani waxa uu dhereeran yahay ilaa 30 kiiloomitir. 1975 mar ayay xukuumaddii kacaanku halkan dadka inay ka rarto go'aamisay, waxayna dejisay magaalada Kudai oo gobolka Jubbada Hoose ka tirsan. Ilaa 25 sano ayayna haawanaysay oo aan cidi ku noolayn, geedo iyo carro oo keliyana ay ahayd. 2000 waa sanadkii 2000 ee miilaadiga ayay dadku dib ugu soo noqdeen, nololna ka bilaabeen jasiiraddan Chula. Waxaana laga helaa midho daaweed iyo geedo badan oo laga findhicilo ingejinta xanuunada loona yaqaano bogsiyayaasha. Jasiiradeedyadu ma laha ceelal iyo ilo biloodyo laga helo biyaha la cabo, baddana lagama oombaxo oo waa milix. Biyaha keliya ee nadiifta ah ee halkan laga helo waa biyaha roobka oo ay dadku ku kaydsadaan baraago ay gacantooda ku qoteen. Geedaha badda ka dhex baxa ee Masindi, Makoog, Qandal, Mukanda iyo Milano ayaa aragaagu qabanayaan. Geedka Masindi waxay ka samaystaan carshaanta iyo dhismaha guryaha, halka ay geedka Milanda iyo Qandalkana ay ka samaystaan doonyaha ay badda ugu tilaabaan. Libaax badeedka hilibkiisa la yiraahdo xaniidka ayaa ka mid ah waxyaabaha wax soo saarka ganacsi ee ganacsi galeenka ah ay dadkani ku nool yihiin. Jasiiradda Chulana ay soo saarto waxay sameeyaan xaniidka ay cusbeeyaan, qorraxeeyaan, 8 berina laydhiyaan, ugu dambeynna waxay u waldaamiyaan dalka Kenya iyaga oo kiiladii ka siista $2. Jasiiraddan dadka ku nool yihiin waxay degadeeda macmalka ah la dhisay 1719, mar kalena waxaa la dayactiray 2019. guud ahaan gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan deegaanka Chorrey ee hoostoga degmada Badhaadhe, waxa uu leeyahay 3 laagood oo waaweyn: laagta Buula Xaaji, laagta Caanoole iyo laagta Hoola Wajeer. laag kasta waxay ku darsataa marna iyada ku darsama qoori badeed, farbadeed ama gacan badeed, dhammaantoodna waa isku macne. laagta koobaad waxay ku darsantaa marna ku soo darsama qooriga Istanbul oo ah jasiirad weeke. laagta labaad iyadana waxay ku darsataa marna ku soo darsama qooriga jasiirad weekaha ee Kudha. laagta saddexaadna waxay ku darsantaa marna ku darsama qooriga Buurgaabo oo ah jasiirad weeke. haddaba laagta Buula Xaaji waxay ku dartaa qooriga badda ee Istanbul. laagta Caanoole waa carro madow, sidoo kale waxay ka hawdiya shiqsan tahay laagta Buula Xaaji. laagta Caanoole waxay ka sii hawdsan tahay oo ka sii shiqsan tahay laagta Hoola Wajeer oo abarta ay kaymaha badda madow ka bilaabmaan. qooriga badda ee Buurgaabo ee ku dara ama ku darsama laagta Hoola Wajeer waa qooriga ama farbadeedka ugu dheer, qiyaastiina 60 kiiloomitir ayuu badda bariga uga baxaa. laagta Caanoole waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah inay mucaskar u ahayd jabhadda Al-Furqaan, balse ay dadku u yaqaaneen jabhadda Caanoole. waxay ahayd mid ka mid ah jabhadihii islaamiga ah ee dalka ka hana qaaday 2006, waxaana urur iyo magac ahaan loogu dhawaaqay Oktoobar 2007 iyaga oo magaalo madaxna ka dhigtay Kudha oo kulaalaysa badweynta Hindiya. jabhaddan ayaa beel ahaan ahayd beelweynta Harti, waxaana hoggaan u ahaa Mukhtaar Abu Cali, waxaana ku-xigeen u ahaa Maxamed Mire oo hadda ah amiirka maktabka maaliyadda ee kooxda xugundoonka ah argagixisadana ah ee Al-Shabaab. jabhaddan ayaa hoos tagi jirtay ururka Al-Ictisaam iyadoo laga hagi jiray dabaq ku yaala xaafadda Madiina, magaalada Muqdisho, gobolka Banaadir, iyada iyo ururo kale oo islaami ah. waxaan ahay Muxiidiin Cabdi oo ku burayay dhulka quruxda badan ee hoostaga degmada Badhaadhe.